sheeko jacayl. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib ku soo dhowaada sheekada maanta. Maanta waxaan soo qaadanaynaa mid ka mid ah sheekooyinka jacayl ee mudan inaan qalinka u qaato idinna soo gudbiyo. Mar kale ku soo dhowaada sheekada Salmaan iyo Saamiya. Sheekada waxay ka bilaabanaysaa isbarashada labadan qof ee aan hore u soo xusay. Xiriirkooda wuxuu ka bilowday su'aal u dhacaysay sidan: fiiri aboowe, simkaad somned xaggeen ka helaa? Saamiya waxay ahayd gabar maalmo uun joogta xaafadda. Waxay ka timid magaalo kale. Galab ayayna soo wada baxeen ayada iyo walaasheed si ay u helaan simkaad somned ah. Salmaan aragtida koowaad ayuu la dhacay Saamiya, balse fursad ama hab uu kula hadlo ayuu raadinayay. Nasiib wanaag, ayada ayaaba weydiisay su'aashii aan hore u soo xusnay. Wuxuu ugu jawaabay, haa, aniga ayaa ku tusinayo simkaadhka meel aad ka hesho. Isla markiiba wuxuu geeyey dukaan lagu iibiyo. Halkaas ayuuna ku weydiistay lambarkeeda, wuuna qortay. Lamaanahan waxay ahaayeen kuwo kalsooni badan isu qaaday. Salmaan iyo Saamiya aad ayay u dhisteen jacayl dhabo wanaagsan hayay ilaa heer mustaqbalna hadafkiisu ahaa. Dhabtii qiso ama sheeko walba waxay leedahay caqabado iyo horumaro laga gaaro. Lamaanahan caqabadihii ugu horreeyay ee ay la kulmaan waxaa ka mid ahaa qof saddexaad oo gabadha dhankeeda ahaa, dabcan walaalkeed ahaa, oo inta badan ka been sheegayay Salmaan. Salmaan wuxuu u sharaxay beenta Saamiya walaalkeed, wayna ka gudbeen caqabada koowaad. Yarkii intaa kuma harine wuxuu soo maray dhanka Salmaan. Markan wuxuu been kale oo weyn ka sheegay Saamiya si uu u kala fogeeyo. Markan Salmaan wuu yaabay, aadna wuu u naxay, sababtoo ah
beentii ugu weyneyd ayaa loo sheegay oo ahayd in la qabo qofta uu rabo inuu guursado. xaqiijin kadib Salmaan wuxuu ogaaday in arrinkan been yahay. caqabadii labaad way iska xalliyeen Saamiye iyo Salmaan. lamaanahan isjecel markoodii hore xaafadda ayay isku barteen, way isu dhowaayeen, laakiin markii dambe gabadha oo wareegsatay ayaa dhalisay fogaan dhanka xaafadda ah, inkastoo taasi aysan caqabad ku noqon. xiriirkooda halkii ayuu ka taabo qaaday. waxaa jiray soo jeedino fara badan kuwaasoo ahaa guur weji walba oo macquul ahaa. markaas soo jeedinta waxay ka timid dhanka iyo Salmaan, laakiin Saamiye oo u aragtay in diyaargarowga uu weli dhiman yahay ayaa inta badan soo jeedisay talooyin ku aadan diyaargarow toos ah. Salmaan ayaa ku raacay Saamiye soo jeedinteeda, kadibna halkaas ayay ka sii wateen xiriirkooda. caqabad ma dhammaato noloshii. waxaa jiray shakiyo yaryar oo labada dhinac ah. intooda badan waxay ahaayeen kuwo ay xalisteen. Salmaan iyo Saamiye waxay noqdeen lamaane kalsooni badan isu qaaday kadib markii ay xaliyeen caqabad walba oo ka hor timid. inkastoo ay jireen maalmo aad u qallafsan oo soo maray, waxaa jiray xilliyo uu muran soo kala dhex galo, haddana ay talo xumayaal gabadha dhankeeda soo mari jireen. waxaa ugu darneed mar kelmado aad uga xanaajiyay Salmaan barta Facebookga loo mariyay, weliba dhanka iyo statuska. ficilka wuxuu ahaa mid ka mid ah albaabadii shakiga ku furay Salmaan. arrintan waxay timid kadib khilaaf yar oo lamaanaha ka dhex dhashay heer sarena gaaray. khilaafkaas ma ahayn mid sii waara. ugu dambeyn waa la xaliyay. waxaa jiray kuwo yaryar oo aanan sheekada ku soo qaadan. jacayl walba wuxuu leeyahay caqabado iyo arrimo uu horseedo sii jiritaan iyo guulo, waxaana ugu muhiimsan kalsoonida iyo wanaagga labada dhinac. marka aan wanaag leeyahay waxaan ula jeedaa in dhanka wanaagsan laga eego wax walbo, si midnimadana loo ilaashado. maalmihii dambe isku dhaca iyo sii kala fogaanta ayaa caadi u noqotay lamaanahan, ilaa markii dambe ay bil kala aamusnaadaan. inta badan xalka ama soo laabashada waxaa ammaanteeda lahayd gabadha. Saamiye iyo Salmaan culeysyadii ka dhexeeyay ayaa laga sii faa'iidaystay, maxaa yeelay markaan way sahlanayd in la kala diro.
waxaa dib shaqadoodii u qabsaday shakhsiyaad aan jeclayn wada socoshadooda, waxayna go'aansadeen in ixtiraamka iyo wanaagga uu mar walba ahaado mid labadooda ka dhexeeyo, sidoo kalena halkaa ay ku soo idlayaan xiriirkooda oo ahaa mid socday sanad. Xiriirkan ayaa ahaa mid bilowday 14 February 2020, wuxuuna soo idlaaday February 2021 dhammaadkeedii. Waxaa xusid mudan xiriirada guuldareysanaya inay weli yihiin kuwo sii kordhaya. Sheekada Salmaan iyo Saamiya maxaan ka baran karnaa? Waa inoo muhiim haddii aad qisada dhammaysatay inaad ka falcelisid mahadsanid. Sheekadan waxaa qoray Cabdirasaaq Axmed Maxamed. Fadlan sheekada haddii ay ku cajabisay like saar muuqaalka, sidoo kale share dheh muuqaalkan. Haddii aadan weli nala midoobin, subscribe dheh janaalka. Mar kale mahadsanid.